muddo baan kala maqnayn soo dhawaada labada maalmood waxaan soo wareeriyay macalinka dilaaga noqday macnaha soo dhawow akhri soo dhawow asxaabta kulli hal soo dhawaada horta waa maasantihiin horta barnaamijkii gungaar wuxuu noqday dadku wax badan ay ka faa'iideen wax badanna ma arkino ii sheegay wax badan waa laga faa'iiday wax badan oo khasaaraan oo ku jira macnaha aldii kara marka inta aan barnaamijka aanan guda gelin waxaan rabaa inaad bal horta aad qaybisiin si aan maartno ii sheeg bal markaan boqolka markii la buuxiyay kadib aan bilaabaynaa waxaan ka fahanteen iyo dadku qaabku wuxuu sharaxay iyo wax ka dambeyn karo iyo dadku si qaabku uga faa'iideysan karaan iyo waxyaabo badan waxaan sameynaynaa ii sheeg waxaan ku sameynaynaa taxliil badan ku sameynaynaa iyo inaan faahfaahin ka siino horta aad ma santiin soo dhawaada mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waa salaamaya waa anigu ah Mr. Boss oo aad uga barateen mar walba inaan ma arkino ii sheegay idin faahfaahiyo dhagar qabayaasha mar walba caadaystay inay dalkeena ma arkino dhibaato u geystaan aniga qofka kaliya ee la soo galo waxa ka hadlo kuna dhiirado inuu ma arkino soo bandhigo dhagar qabayaasha mar walba dadkeena dhibaateeyo nin oo hooyada qarxinayo oo ma arkino ii sheeg walaalka qarxinayo oo waalidka qarxinayo oo dhagar qaba ah oo u taagan inuu ummadda dhibaateeyo sabab aan uga aamusmaba ka saayba nafteeda u hibeynaya dalkayga dadkayga iyo diinteyda iyo dhaqankayga iyo dhan walba inaan ma arkino isha u dagaalano waa ku qasbanaa macnaha marka sabab aad tirahdid markii aan ka hadlayna marka arrin ah dalmaryara soo dhawow fanaankayga qaaliga ah sabab marka aan uga aamusno aan dhahno marka aan al-shabaab iyo daacish iyo kooxahan argagixisada markii aan rabno inaan ka hadalno inta badan dadku waxay dhahaan Arsenal wallahi laba gool laga badiyay Chelsea wallahi maanta way raysaya afaaraas isku boojis lama rabo war waxaan waa cadow lagu soo diray haddii aad daawateen dilaaga la dhaho ilka casi oo ku magac dheeraay wax badan oo ma arkino ii sheegay oo runtii dad badan ay ka faa'iideen oo ah dadku qaabka loo dego wuxuu dhahay professional ah oo professional killer oo ahay macnaha ali kara marka wuxuu dhahay bambaturowga ani mid ka qeylay bambaturowga yahay horta saddex eraan ka barta aniga wuxuu dhahay dhagax oo dhahay dhagax waxa uu dhahay bambada laga wadaa macnaha dhagax waa bambada wuxuu dhahay ul oo dhahay ul waxa laga wadaa qorag oo dhahay ul laga wadaa macnaha waa ereyada ka bartay mideeda ul qoraya laga wadaa macnaha waxaan kala ka bartay birta waxa la dhahaa bastoolada wallahi xariifka waa qabanaa oo dhahay marka waxyaabaha kale aan la yaabo wuxuu dhahay qof soo jeedo lama dilo dhahay sharciga wuxuu dhigaa oo dhahay mid kale waxyaabaha ogaad waxa kamid ah shabaabku waxa ka mamnuuca markaad naqanaysid oo dhahay markaad muqaabaraadkooda aad naqanaysid inaadan horay uga tarsanaa jirin
inaadan horey uga tirsanaa jiro qof horey uga tirsanaay wuxuu dhahay inuu shabaab noqdo totalmente lama ogolo dhahay waa waxyaaba aan la yaabay kamid ah أنا عايز أجري تذكر تبع بريك قبان سواي وحياة بدنا نسكت أحسجري لكن معلم كتلاقة وحواي أرتا سكولك أو دكسي أو صاب بالعربي سكولك وصار فرت أنا جامعة مالك هذا ودي أنا جامعة تكون عادتك قاعد يسوي دينه عليهم والجامعة ده كبحي نيك جامعة كمان بحل سكول برايفت ودي أنا هاي برايفت كمركو كتنا كدي منو حسمي إيش برايفت ودي أنا هاي برايفت كاس أيوة حول نقد معلم كان نقده أنا أديك إنه أرتضع أو عاوية أو كنقده حتى أيوة جامعة ودي لكن هو هاي السيور هو ليز كلا إنه كده حق صدور ربع مركب ما حنك بركة نواس ده سلوك ورتي كراوا الكعسو هو سوبر باور ده تقانين بيس وسرقال بوليس ولي بقى سرقال بوليس أو حواي horta qaabka loo soo qabtay ila dawladda nooma soo faahfaahin inkastoo aan ka daba tagi karno qaabka loo soo qabtay laakiin inkastoo aniga aan maqlay inay soo qabatay maxkamadda ciidamada qalabkiisa soo qabatay booliiskana sooma qabanin nabad sugidana sooma qabanin waliba xogaha kale aan helaa waxay tahay inuu ilka casal la shaqeynayo nabad sugidda ayuu la ka tirsanaa biiriya nabad sugidda la shaqeynayay aabiis waa sargaal booliisa isiga waa macallin way adag tahay nin oo aabiis booliis yahay sargaal booliis oo gurigiisa ala geli karo hub yaalo aabiis waxba ku ogaan karaa boqolkiiba 99 aabiis waxba ku ogaan karaa sababtoo wiilkaagii oo hubeysan nin hubeysan waa ninkan saas wuxuu kala waday saas waxay afar ilaa 9 saac wuxuu isku waday magaalada muqdisho 9 shabakadood ee shabaab ayuu wuxuu ahay atoor u ahay 9 shabakadood 9 magac u sameystay shabakad kasta magac u lahayd macnaha kuwa qaraxyada ah kuwa markan dilka qorshaysan fuliyaan iyo kuwa jaajoosiin ah saddex ay ahaayeen iyaga laftooda ganay iyo mid kale oo sin hadda oo iyana lagu xukumay dil toogasho ah oo maqan okay maxaan ka baran karnaa maarka waxaan ka baran karnaa waxa waaye dadka oo xildhibaanada ah ee wasiirada iyo saraakiisha aan guriyooda la geli karin ogaada caruurtooda ayaa argagixis ah aniga casharka koobaad aan hadda ka horna aan ka hadlay haddana aan ka hadlooday waxay tahay difaasiin waxay tahay qof aan gurigiisa la geli karin ayuu shabaabku dhexdhexaadaya macnaha sargaal hebel oo gurigiisa hub yaalo sidee aan ugu dhiira karaa inaan gurigiisa galo ma geli kartid ilkaas marka waxa uu fududeysay aad ugu fududaatay sababtoo aabiis waa booliis gurigiisa lama geli karo maanta hadii la xiro macallimiinta iskuulka soo wacaan waxay dhahaan warxayta macallinka xiisada bixilahay maxaa lagu xiray argagixis ma noqon kara leeb yaa noqon kara argagixiso macallin dugsi argagixis naqanayo mu'adina maxaa argagixis naqanayo sargaal booliis argagixis naqanayo xildhibaan argagixis naqanayo xildhibaanka argagixis naqanayo wasiirada qaar xildhibaan markana naqanayaan oo dhaqameedida argagixis naqanayaan marka waxaan rabnaa inaan ogaano sharciga aan wada sinaano mid aan wadaas waa markii la sameeynayo soo qaba baaritaano markii la sameeynayo guriyaha saraakiisha iyo guriyaha xildhibaanada iyo guriyaha markana ay sheegay dadkaas lama gal guriyooda waxa la galaa oo kaliya guriga oo master yu boos oo gurigiisa la galaa iyo guriga waxa la galaa hebelo iyo jaamac iyo markana asxaabteeda ayaa guriyooda la galaa oo hubaysnaan dawladdu marka waa inay ku dhiira kartaa ay gali kartaa xildhibaanada gurigiisa wasiirada guriyahooda in la baari karaa gurigaaga kugu lunag illa shabaab hadda aniga ilkaas marka waxaan ka barnaa marka ninka super power waayo suudu ku liqishay yahay dil walbana asaa fulnaa waxyaabaha aan ka barto waxa kamid ah qofka markuu soo hore u soo dilno dhahay uu soo wacana magaciisa waxa la jaamaca la dhahaa haye laba afar kula kulmaysa liida kula kulmaysa taleefanka shaqada kala qaadanaysiin kadibna qofku wuxuu dhahay dilka marka waxa sameynaysa qofku u dhigo dhaano dhameystira dhaheer marka 5 qofood aan marka u dhigo ilaa ninka waa professional dilaa weyn oo waxa waaye oo aan naxariis lahayn waaye oo dilka ayooba ku nool yahay macnaha dilka ayuu ku nool yahay dilku wuxuu ka soo bilaabay markuu ka soo bilaabay adeerkiis ninkii dilo waaye oo xuura tira ku buuxsan oo tiro ugu buuxsanay caruur meel banooni iska daawanaysa bambacanuuni waa tan ugu daray waxay xuura professional bambacanuuniga oo dhaaniga dhagax oo isticmaal eraga dhagax oo dhahay dhagaxani wuxuu marka isticmaal oo dhahay aniga professional ku dhahay baasha markay dhahdo markaas ka diban tuuro oo dhahay iyadoo gacanteedu ku qaxirtan tuuro oo dhahay macnaha si oo qofka xataa markay u tagto si tagaysa waxa way hore ka qaxaysa oo dhahay macnaha ma istuuri karo oo dhahay macnaha marka waxaan rabnaa marka inaan ku dhiirano waxaan ka barnaa marka ilka case aniga waxa aan ka bartaa waxay tahay saraakiisha ciidamada kale markii la dilayo dhahay dadka la hubeysan waxaan aragnaa asgari oo jaadiska qoran garab ku jiro
oo ma arkino ii sheegay jaadiska gadana arkaysa wax ilaalina mala saddex afar waaye kabar ay ku mashquulsan qoryaha laga qaadan karo oo easy waa u dhahay qofka bustolad marka uu dhahay hadii duba oo lahayn oo dhahay oo san u raacsanayn iidana la mid waa u dhahay waa iidana waa ka qaadan karo oo dhahay aniga wuxuu dhahay marka aniga hanteedu wuxuu dhahay ilkaas waaya wuxuu dhahay aniga hanteedu qof u beesto wuxuu dhahay marka aan ka aqaan oo dhan dil kareen kar aragti bis in aragti bis ka hoobayso macna marka waxay ku tusinaysaa marka ogow mid kale aan oo hadda ka jawaab waxay tahay anigu wuxuu dhahay qofka marka aan dilaayo wuxuu dhahay waxa iska ilaaliya inaan is aragno bis wuxuu dhahay inaan is aragti bis sababtoo waxa waa inaan dhinac uga imaada ama gadaal uga imaada dhahay gaadma bis ay wax lagu dilaa dhahay waxyaaba kale ay ugu yaab badnaa aan barto waxa kamid ah suuqa xamar weyn ama suuqa bakaara qofku dilay dhahay pop asino dhahay marka pop series dadka soo dhaqmaan oo dhaqmo dhahay macna dadka haday kala ordaan way orday dhahay haddii aysan ordin waa iska lugeen oo dhahay macna cid ku dhahaysa ma jirto dhahay marka cid ku dhahaysa taliya soo dhaw isu xundubay dadka marka xoolo dadka meelaha ay u badan yihiin sida masaajidada iyo markana isha suuqmaka waaweyn in wax lagu dilo u fudud dhahay dadka tii ordaan way orday dhahay laakiin aniga taas hadda qorshe u haya qorshe fiican u haya oo ah dadka gobolka banaadir joogo markay xabad qush tiraahdo nin kasta meesha oo joogo waa inuu dhulka jiiftaa macnaha sharcigaas la soo rogo waa booliska qofka orday in xabad lagu dhiftaa kadib meesha taaganta waa inuu dhulka jiifataa macnaha waxaa ku fududaanaysa markaas ciidanku waxa u fududaanayso iyo dhar cadda iyo booliisku waxa u fududaanayso ciddi shan hore laga qabto haddii la dhaho marka tusaale soo qabo suuqa xamar weyne markuu ninka xabad ku dhifto oo dadka ay iska socdaan still marka iska mana haddii la kala ordo sheekadu waxaa bilaabanaysa inuu ordaa bilaabanaysa haddii ay dadka socdaan wuu soconaa adiga marka dadka ma istaajin kartaa maya suuqa dhab isku war laga qabanaa markaas cid dhaqaaqi karto macnaha cid kasta waa inay dhulka xabad ku haysaa macnaha markaas oo kale ilaa askariga meelaha taagan waa inuu xabad ridaa shacabku ma dhamaynaya marka ninkii ordaa in la dilo waa markaas macnaha mifatin marka taas waxaa looga badbaadi karaa waa hadda wadamada qaar way ka jirtaa hadda Kenya kale way ka jirtaa haddii tuugado kale markii la qabto qof walba xabadka dhulka dhigaa Kenya kale way ka jirtaa Ethiopia kale way ka jirtaa sharcigaas ku jira adiga ninkii ordaa in la dilo ayuu sharciga qoraa marka tan oo aan asleeya marka shacabka gobolka banaadir oo kale in lagu siiyo wacyigelin lagu siiyo markii dil iyo dhibaato markay dhacdo oo kale inaysan kala ordin oo nin walba meesha oo joogo markaas xabadka u dhigo si oo ninka dilka geestay bisaas oo haraa markaas wuxuu ku qasbanaana inuu rooro maadaama dadkii dhan ay wada jiifteen inuu roora ku qasbanaanaysa oo ku qasbanaana kadibna waxa waay dhar caddi meesha joogtay iyo ciidamadii booliiska meesha jooga waxaa u fududaanaysa ninkaas in la toogto ila duka cambaar loo kana qofka kali haddii uu jiifta xataa dadka dhan waxa waaye hadhow farta la isku fiiqaa markaas qof kasta meesha uu joogo marka uu istuuro waxaa fududaanaysa in gacanta lagu dhigo marka taas waxaan rajaynayaa haddii aad rabtiin dilka inuu iska dhamaado waa waxaa idiin soo hartay qaraxyadoo kale qaabka uu qaraxyadoo kale uu soo agaasimo kale runtii cashir badan ay ka baxayda laftigeeda oo ah qarax wuxuu ka saameyn badan yahay dililka qorshaysan oo dhan waa saxo bug markay yeerto dhahay marka wuxuu dhahay marka xamar weyn oo kale ba meel oo ammaankeeda aad loo ilaaliyo xarumaha dawladda ah qaabka oo hadda markuu ka hadlayo kale markii ninkii booliiska lagu dilaayay markii dabka oo kale markuu ka sheekayna wuxuu dhahay ninka laba asgari la socoto markaas masaajidka ku tukada waa nin masaajid in lagu dilo loogu talagalay laakiin wuxuu dhahay ciidanka booliiska meesha maadaama ay meesha ka dhow yihiin kulaha waxaan isku dayno inaan ciidanka mashquulna bambacanuuna xarfaan bambatuuro oo aan ku mashquulno macnaha xabad markay bilaabatay anagana kiyaan dilay marka meel xabadaas qabsatay sargaalkan saas ku cunow macnaha marka waa ka dareemi kartaa ogow shabaab waxay isticmaalayaan waxaa waaye dadka ay isleeyihiin qofka lagama shakinayo weliga taasaan ka fahmay taas qof aan laga shakin hadda anoo you boss oo kale shabaab anoo kale ii baahan shabaabka lagu sheegayo because igama shakinaysin qofka ay ka shakinayaan ayaga oo la leeyahay amba sunnada ka muuqato amba ay ka muuqato hadda koox xataa training amba tababar u soo qaatay ma rabaan waxay rabaan bid ciyaal suuqa faataala ah meelaha markana xarfaanta markana bajaajleyda waxaa la ogaaday inay 99% ay yihiin dilka qashis wax fuliyo bajaajley aniga marka ay dhigay jira hadda koor war bajaajleyda wax loo dilaayo idinka ma isweydiinaysin miya macna bajaaj waxa way soo gidma ku imana wuxuu noo cadeeyay waxay inuu laba bajaaj lagu socdo naaga hubku keenaysa bajaaj bajaajna wuxuu dhahay anaga qaadayso u dhahay mar inta badan ugu saddex isku la socdaan soo noo sheegay saddex qofood la isku la socdo dhahay waxa kale oo noo sheegay dadka dadka wuxuu dhahay oo waardiyaasha u dhahay oo waardiyaasha leh oo ciidamada ilaaliyaan marka wuxuu dhahay labada qofood ee iswaardeena midba midka kale u waardeena in la dilo adagto dhahay wuxuu kale oo noo faa'iido waxa waaye
askarta dawada taqaana askari oo xal iska qiilay iska baashaalay markano subaxdii shaqadiisa xataa ku qanacsaneen oo mushaar aan qaadan waa dareemi kartaa qorag dhan garabku iska suran yahay nolosha haday go'do way go'do kala waa macnaha laakiin adigu waxa waa u barartaba waxa waa u bareertay naftaada ma lagugu tuuga ina ilaalisid naftaada ina ilaalisid askariyow in lagugu tuuga ma aha waa ina naftaada adiga ilaalisaa iyad la soo dhaw saaxib marka meeshaan cilado badanaa taagan marka ciladahan taagan waxaa loo baahay in xal loo helo oo aan wax badan aan ka fahanno dadka gobolka banaadir waa inay soo jeesatiin ciidamada booliiska iyo idinkan waxaan idinka codsanaynaa war shacabka bis habaarinay war saraakiisha iyo booliiska iyo militariga iyo markina ishaga siyaasiyiinta iyo wada dhaqameedyada guryahooda ganacsatada waaweyn iyo ay hubab kasta caruurtoodii wada argagixisay inta Soomaaliya ay ka jirto waji marka aniga oo yu boss ah hotel Kristo maanta waxaa laga yaabaa 3 maalin inay baaro maalin afraad waxaa la dhahaa ninka waa la yaqaanaa iska dhaaf sargariga ugu daala macnaha inuu maalin walba ibaaro ugu daala macnaha wuxuu dhahaa marka iska gal maalinta dambe dhugneera la geli karaa hotelka macnaha waa wajigan Soomaaliya wax ka jirto waxay tahay shaqada iyo wajiga hala kala saaro qofka shaqadiisa loo dhaafo wajigan hala joojiyo oo la dhahayo adiga control ciidamada qaar marka la sheegto ugulaan control anigoo jooga mid sargaal ama nin booliis ama nin markan isha madaxa soo maraa wada warkaas wala anigoo hebele miya ani baari kartid wariya aaw wixii oo markan madaxda ku ay keen u dhaha macna ha ya taliyaaga isha ku dhaha war adiga taliyayga iyo wixii inta iska dhaafta ani shaqadeeda ma qabsan karimi adiga shaqadaadii ka hor istaaga macna waa mid ugu weyn taas macna marka saraakiisha iyo markana ishaga dadka madaxda ah waa inaysan ciidamada dawladda waa inaysan ka hor istaagin shaqadooda macnaha shaqada qofku waa inaad markana Ciise America soo dhaw shaqada waa inaad qofka loo dhaafaa shaqadiisa nin walba shaqadiisa inuu yaqaan brother controlkan ana joogo waa inaad controlka aad martaa oo aad markana sharciga iyaal waa inaad martaa taas la rabaa bis wax kale lama rabo hadaa taas samee weysid oo shaqadaada lagu qabsado waxa xaq u leedahay ninka sargaalka ah ama ninkaas markana mas'uulka ah inaad talaabo sharciga adiga ku yaal aqada because adiga waxa hadaa iska dabka aad joogtid oo nin booliis ama nin sargaal oo yimaado oo handado de aniga sharcigayga haduu samareynin ani meel uu jooga aniga mid dhaafaa ila qarax haduu gudbo haduu adoo lagu qabsana marka in waxa rabaa la booliiska in wada shaqeyn la yeesho oo aan la hadadin dadka madaxda waa ina macaamilkiina oo ahaada macaamil fiican ileen ninka asgariga wuxuu u taagan yahay inuu qarax ka ilaaliyo naftiisa ayuu biimo geli oo gaari kasta oo baarayo uu ku qarxi karaa waa la dili karaa dhibaato badan marka shaqada waxa rabnaa in hadda nabad sugidoo kale hadda shaqo fiican ay qabato runta ay sheegaa dilka qorshaysa magaalada Muqdisho shaqo fiican ay qabato adiga 3 bilood ugu dambeysay dil qorshaysa maarteen shaqo fiican ay ka qabteen marka waxaan dhahayna waa ku dhiiri gelinayna waxaan dhahayna keep going aan dhahayna macnaha keep going aan dhahayna hor u socda marka waa idin salaama kulligiin habeenka idin wacnaado ogaada haddii argagixiso wadan ay adduunka ka talaysa ma jirto taas ay idin sheegaan wadan argagixiso ka talaysa ma jirtee dowladdan ha noo xumaato ama ha samaato ciidamada dowladda siyaasiyiintu waa tugtug dhal siyaasi tug waay mar walba laakiin ciidamada dowladda inaan anaga aasixi karno aan markana isheege wax fiican aasi karno oo ah moral marka waxaan rabnaa in moral la siiyo ciidamada lala shaqeeyo aniga shabaab ma ka boqo shabaab meesha ku aragtiin boolisow nin hubeysano shabaab hadaa aragtiin xabsaa geelin dila xabad ku fakii ileen haddii aad xabsi geysiin waxaa laga yaabaa adeerkiisa nin markana sargaal ah aabihiisa sargaala waa la soo dayna adiga ninka maanta xirtay oo soo bastoolo wada bamba tuuray aa soo qabatay oo beri lagu soo dayay ma ku dhaafahay adiga ku dilaahay adiga marka waxaa waaye tacab shiid lama dhaqanaysa macnaha shacab tacab ma la dhihi jiray ishaga qofkan waa tacab oo lagu khasaaro kale macnaha marka dhaafa billah caleyk marka waa idin salaama kulligiin habeenka idin wacnaado